waxaan xaggan ka hadlaynaa dhalinyarada oo reer galmudug oo xoog lagu haysto hadda wasaaradda cadaaladda anoo afkeeda ku hadlaa nimankan sharci darro galmudug u agtaa inay nimankan lagu haysto inay nimankan la jirdilo inay xorriyatul qowlkooda laga qaado inay sida shawqiyaal lagu xiro oo lacag loo doonto oo waxyaalo ka badan oo jirto oo wiilashaan aan xataa hadda idaacadaha iyo media iyo warbaahinta u sheegin laakiin wiilashaan in la dulmiyo waa xaq mana loo dulqaadanayo ma la daawanayo reer galmudug banaanbaxyaal waa la wadaa wiilashaan dhibaatadii qabaan waa la qabaa laakiin banaanbax oo nabad ku salaysan yaa arrintaan la siyaasanin yaa dad la dulminin xasilinta iyo nabadda deegaanka ha laga shaqeeyo mar labaad ma saddexaad xaqaa ku leediin wadda toosaad taagantihiin inaa xanuunka walaalihiina dareemtiin inaa maanta la dareemtiin waan koowaad wasaaradda cadaaladda soo dhaweynaysaa dhanka kaleeto wasiirka cadaaladda federaalka iyo wasiirka cadaaladda puntland iyo hay'adda UNODC iyo UN oo maalgeliso xabsigan oo faa'iido doon u noqotay wiilasheena oo 10 sano lacag laga dhigay oo go'aan lagu dhistay oo in ka badan jirta hadda media ay warbaahinta ku sheegi karin laakiin annakaas ku ognahay waana ka digooyo arrintan nabadda ha laga shaqeeyo xasilinta ha laga shaqeeyo